soo dhawaada saaxiibayaal mar kale markuu filimku bilaabanayo haweeney Orient Natalie ayaa la tusiyaa kadibna waqtigeedii dhalmada Alina hooyada Natalie ayaa sidoo kale joogta xaaladda Natalie waxay bilaabaysaa inay ku keento xanuun hooyadeedna waxay si degdeg u qaadaa isbitaalka maadaama ay tahay kordham inta badan dhakhaatiirta ma joogaan si kastaba aatee kalkaalisay daryeelaysa hadda Natalie waxay dhashay ilmo markii arkay ilmaha dhamaantood ergaxan oo lacbay qabaan sababta wixii aan waxay ahay waxaan rumaysan karin sababta ilmaha ayaa bilaabay inuu doono Natalie iyadoo yaaban tahay markaas hooyadeedii u sheegtay in ilmo malkii ku dhashay guryahooda maadaama ay tahay qof aqoon iyo aragnimo leh hooyada Natalie way fahmaysaa in ilmaha uusan caadi ahayn taasina waa run sababta ilmaha wuxuu dhashay uusan u dareemin culays iyagu dad aan ilaalin sidaas darteed waxay iskaga baxaan isbitaalka inkastoo kalkaalisadii ku tiraahdo weli lama fasaxin laakiin way iska dhigtaan markay guryahoodii yimaadaan hooyada Natalie waxay weydiinaysaa su'aal yaa markay guriga gasho waxay ku tiraahdaa xasuuso qofka mas'uulka ilmahan balse Natalie ma xasuusan karto qofka mas'uulka kadib hooyada ayaa weydiinaysaa in mana caadi ahayn orinta in sar laga dhigo waxay la hadii la ogaado waxaan wajihi karnaa dhibaatooyin badan kadibna waxay u bixiyaan ilmaha magaca Oscar dhabahantii Oscar wuxuu ilmaha caadi ahayn sababta korintiisii ma ahayn mid sahlan markii keligii dayaan waxay muddo dheer ku degnaan jiray saqafka ayadiisa ayaa sameynaysa suuman gaar soo dhulka ugu xirmo waxay sidoo kale saqafka ugu dhigay mid jilicsan sida feero uusan u waxyeelo gaarin waxay ka cabsan hadii banaanka lagu hawada ku duuli karo sida dartii aad bay ugu taxadiraan Oscar hooyadiisii way daryeelaan Oscar uu koraya waqtigii uu socdo laakiin weligiisii guriga iyo jooga ayadiisii ma ogol inuu banaanka u baxo wuxuu daawantii Atlanta kortoonka Superman-ka isagoo guriga jooga wuxuu ka fikiri jiray inuu sii yahay geesi markaas Oscar wuxuu mar badan weydiinayay hooyadiisii Natalie sababta uu geeyay inuu banaanka u baxo laakiin waxay iska nintar Oscar wuxuu daawanay dadka maraya dariiqa oo ay ku jiraan carruurta dugsiga u socda waxaana carruurta ciyaaray jidida maclaya galaysa isigoo ribitaanka xornimada ka buuxdo wuxuu umaleeyay in laga yaabo inuu halka ku xirnaan doono weligiisii maalmaad ka mid Oscar wuxuu isku dayay inuu ka baxo guriga isagoo ka baxay daaqada isagoo ka xanaaqsan xiriirada laakiin ayadiisii ayaa carruurta markii artay dhacdaas ayadiisii waxay xirtaa dhammaan daaqadaha waxayna Oscar u sheegaysaa in weligiisii banaanka bixi doono si carruurta dugsiga u socda wuxuuna guriga wax ku baran doonaa markay maqasho hooyada Oscar way carruurtay waxayna tiraahdaa intee leeg baan ku hayn doonaa xabsi wuxuu mar banaanka bixi doonaa markaas hooyada Oscar waxay u keentay jaakad ay ku jiraan laba dhagax jeebabkeeda soo u duulay wuxuu Oscar u baxaa banaanka iyadoo hooyadeeda ka warqabin waxayna ugu dhigtay arrintaas si sare xitaa hadduu ogaado Superman-ka diikal wuxuu limin doonaa awoodiisii markuu Oscar baxay hooyadiisii si wax u siibsan wuxuu ku dhacay gabadh yar magaceedii waxay siinaa alaabteedii gacanta ku haysa ayaa dhacis waxayna ku qoynaysaa Oscar iyadoo dhiibisa laba dhawlo biyo ku jiraan waxay ku tiraatay waxay qaabtaad waa in alaabta aan keentay gurigeyga laakiin Oscar uu diiday laakiin markaas siino ka adkaysto uu ogolaadaa wuxuuna raacay gabadh yar isagoo hooyadiisii u sheegin hadda Oscar waxa gacantiisii ku jira laba dhawlo sidoo kale dhagaxyadii ku jira jeebkiisii natiijadu waxa dareemaysaa culays dheeraad ah markaas uu dhagaxyadii ka tuuray jeebkiisii saaxiibtan ma ka dhex bilaamaysa isiga siina markii gurigeedii ma siina waxay weydiinaysaa dhalooyinkeedii biyaha laakiin Oscar uu diiday inuu soo celiyo dhalooyinka sababta wuxuu ogahay in laga qaado cirka sare u duuli doono siina ma mid qaangaar markaas wuxuu u qaadataa dhalooyinka markay qaado Oscar wuxuu bilaabay inuu hawada sare u kaco goobtaasina mid xirisaad darto Oscar si sare ma duulo siina aad bay u liyaata markii arto waxay ku dhawaaqdaa Superman Oscar wuxuu ka codsaday nacwasa markay maqsisiinaysa degdeg u gashay guriga waxayna keentaa boorsadii cadaanka ka buuxan dhagaxyo waxay ahayd fikir fiican oo jeebkan dhaxayl gashto qorshoodii uu guuleystay Oscar uu soo dagaa kadibna waxay noqon saaxiibo aad isku dhow kadibna Oscar wuxuu leeyahay ballan qaad in arrintaasi ku ahaanayso dhinaca kale hooyada iyo waxay u koonaysaa maqnaashaha Oscar waxayna raadiyaan muddo dheer waxayna u maleeyeen hawada sare u duulay hooyadiisii waxay dhagaxyadii ku dhacay dhulka hor u gurday jeebkiisii Oscar wuxuu ku soo laabtay guriga isagoo wato boorsadiisiina wuxuuna u sheegay hooyadiisii iyada markaas hooyadiisii wadiisaan u sheegtay sirtaada laakiin wuxuu been u sheegay isigoo lama uma sheegin kadibna Oscar siina waxay sii wada inay kulmaan maalmo badan maalmaadkan hooyada Oscar wuxuu ogaatay in siina sirta og tahay markaas uu diiday in Oscar la kulmo siina waxa ka dambeeyay maalintaasi siina waxay ma jirto guriga Oscar laakiin Natalie ka celin jirtay albaabka
kadibna degdegeenka la yaab inay ka shakiyaan waxay u maray in hooyada iyo Oscar si xun u dhaqmiyaan saa darteed wuxuu u diidayaa inuu banaanka baxo sidoo kale dugsiga maad waxay aan ku sheegayaan booliska wuxuu yimaaday gurigeedii maalinta xigtiisa oo amray Oscar la geeyo dugsiga waxayna u qasbay in Oscar la geeyo dugsiga waxay waa in Oscar uusan marnaba la shiishay caadi ku noolaan karin markii Oscar dugsiga indhahoodii ilmiya ka buuxsamaya hooyadiisi waxba faasantay si darteed waxay go'aansan inay guriga ku guuraan kadib waxay bilaabeen inay ku noolaadaan meel fog waxayna ka tagaan guriga sanabadan way dhaafay Oscar nagu koray hooyadiisi way go'tooyadiisa way dhimatay Oscar wuxuu ahaa boorsadaysiina siisay barnaamij boorsadaas kama aysan tagin xitaa wuxuu sixin jiray si uu ku hayo boorsada noloshiisii waxay sideeyahay wuxuu noloshiisii ku bixin jiray si uu guriga jooga shiisii wax miisal Oscar hooyadiisi u daryeeli jireen Oscar wuxuu ku cajinoosan wuxuu dareemay dib isagoo qarnay sirtaan kadibna wuxuu ka fikiray in haddii dunida uga tirtiis wacan ka noqon doono dunida sida halaagiisu superhero-ga ah isagoo rajay in dad ka qor doonaan buugaag laakiin hooyadiisi arintaas ma jecel hooyadiisi waxa uu sheegay in suurtagal ahayn waxayna ku qasbaysaa in hooyadiisi dunida ogaato sirta ay ku weyn doonto wiilkeedii saadatu sawir muujinaya laakiin maalmaha kamid wuxuu kiis ugu baxay guriga isagoo hooyadiisi u sheegin wuxuu tagay bannaanka markii uu guriga soo bandhigay hibadiisi halkaas oo hibada dadka la soo bandhigo wuxuu gaariyay heerkii ugu sareeyay habeenkaas hadda hooyada Oscar inta waxba kama qaban karto dad badan TVga waxayna u qosin caan yahay maalintii xigta wuxuu la kulmay Lilian TV oo dhab ahaantii hawlkiil xuban la qaaday inuu caan ka dhigi doono wuxuu ila dad badan ku keen doona oo ka dhigi doona mid caan ah wuxuu siinay guri wuxuu ku khasbiyay inuu saxiis qandaraas ah Oscar wuxuu dhinacaan wuxuu ka qeybqaataa bandhiga inuu xusan bandhiga wadiisi wuxuu si dib u noqday caan dadku waxay ugu yeernay aan ujeedadka dadka lugta kale arintan waxay shaqadoodii ku raaxaystaan lacag badan bay ka hadlaan laakiin maalmaha ka Oscar wuxuu dareemay iridiisi yaraantiisa inuu noqdo geesi aysan marnoon wuxuu noqdo bambal dadka loo mawliyo mararka qaar waxa lagu yiri bandhiga si xirmaan dhacdooyinka warbaahinta wuxuu bilaabay inuu cibin nolosha inkastoo buug badan laga qoray jarnaalo badan laga daabac sheekadiisi waxaan lagu sameeyay dukumiinto muujinaya sawirka xun hooyadiisi taas Oscar aad buu necab yahay bandhiga ugu dambeeyay waxa lagu libsaa dhar malaga ah taas waa aad necab yahay dhawaaqay aniga malag miihi wuxuuna bilaabay inuu dadkii hadal xun ku yiri isigoo xanaaqsan kadib hooyadiisi wuxuu sheegay inuu go'aansan wax walba joojinayo wuxuu walkiis u sheegay inuu film mar inaan hadcaan shaqadii waxay dhamaatay wuxuu sheegay inuu mar dambe ka qayb qaadan doonin wax bandhig ah walkiisina wuxuu leeyahay sida kuma dhaafi kartid laakiin Oscar wuxuu aqsan wuxuu walkiis ku leeyahay oo sheegay dadka ninkii aan lahayn cubid ku dhintaa oo kacay wuxuu macaslaamay hooyadiisi maadaama uu dino ku noolaan gaar ah geeridnka aan lahayn cubid ku xalashacin doona maalmaha soo socda dad badan si kala duwan uga hadalaya hooyada Oscar waxay bilaabeen kaligeedii noolaato saxaafaddu waxay gurigeedii u yimaasay weyn waxa ku saabsan Oscar balse hooyadiisi waxba uma sheegto sanado badan kadib hooyada Oscar way dhintay laakiin Oscar uu nool yahay wuxuu ku noolay sidii horsi ka dib wuxuu leeyahay kadib wuxuuna ku fadhiyo kursi curyan si uu sirtiisa ugu qori dadka wuxuuna shaqo kale oo talisigoo noqday xafiisyahan isigoo u sheegay cidna qofka uu yahay dadkoo dhimisay ceeb bay u dhaqmaan maalmaha ka wuxuu la kulmay saaxiibtiisa Siina waxay weli garanaysaa sababta wiil wuxuu haystaa boorsadii casaydii yarantiisii siisay boorsada sabab in uu ku soo jiro oo uusan guursan markay ay kulmaan farxan laakiin sina kuma qalad ma sheedii sababta waxay u naasay lacag kali loo raadsado dambeena ma waxay la damaashay jadwalka hotelka Oscar ka shaqeeyo Oscar aad buu murugooda markuu muqlataa marar badan Siina u shaqada rankiisii laakiin iyadoo iska intirtaa waxayna samoojinaysaa nisbad waxaan caddayn Oscar jecel wali Siina nasiib daraadii Siina noloshiisa murugada ayaa bedeshay Oscar uu ka tagay laakiin ugu dambeyn way sacafiyaan way isguursan waxayna ku laataan guriga yaranteedii ku koreen halkaas uu filimkeeni ku dhamaanaya hadii halkan la soo gaartay aad baa umaasan tahay hadduu jira subscribe saaro hadduu aad subscribe ku yahay ka cusna muuqaal la noo sartin meel gaari aad baa umaasan tahay